agaasinka baarista dambiyada dalka Kenya ee DCI-da ayaa hadda doonaya Xafsa Axmed Cabdi iyo Jackson oo lagu eedeeyay inay afduubeen Xafsa Maxamed Luqmaan inay xirnaan doonaan 14 maalmood si ay u soo dhameystiraan baaritaanada ku saabsan afduubka Xafsa. sida laga soo xigtay warqad dheer oo la geeyay maxkamadda Makadara, dambi baarayaasha ayaa waxa ay rabaan in loo ogolaado inay sii wadaan ku haynta labadan tuhune saldhigga booliiska ee haatan ay ku sugan yihiin si ay u soo dhameystirtaan baaritaanada la xiriira afduubka Xafsa Maxamed Luqmaan. sarkaalka dambi baarista Mary Wandia ayaa sheegtay in labadan shakhsi la soo qabtay maalin ka hor aynu u baahan yihiin waqti dheer si ay u soo dhameystiraan baaritaanada hadda socda. 14 maalmood waxa ay booliiska u ogolaan doontaa inay sameeyaan baaritaano xooggan iyo inay helaan markhaatiyaal kale oo arrintan sii caddeeyo ayay tiray Mary. sarkaalkan ayaa intaasi ku dartay inay jiraan tuunayaal kale oo wali la raadinayo. waxa ayna sheegtay inay rumaysan yihiin inay jiraan muuqaallo dambiyeedyo badan oo ku lug leh oo lagu heli karo oo haddii arrintan la sii wadana ka caawin karto in la helo markhaatiyaal badan oo arrintan ku markhaati fura. baarayaasha dambiyada dalka Kenya ee DCI-da ayaa soo qabtay labadan shakhsi 27 bishan Juun oo ahayd Axaddii aynu soo dhaafnay. labadan eedaysane ayaa lagu tuhmayaa inay ka dambeeyeen afduubkii iyo jirdilkii bishan horaanteeda loo geystay Xafsa Maxamed Luqmaan oo ah gabar Soomaaliyeed. Jackson oo 24 sano jir ah iyo Xafsa Cabdi oo 21 sano jir ah ayaa laga soo xiray hotelka Crystal View Lodge. booliiska ayaa sheegay in labadan qof oo xiriir jacayl uu ka dhaxeeyo ay ka dambeeyaan afduubka Xafsa Maxamed Luqmaan oo laga kaxaystay dukaankeeda ayadoo ku sugnayd. kadib markii ay falka dambiga ah geysteen, Jackson iyo Xafsa waxa ay ka baxsadeen halkii ay joogeen waxayna iibsadeen baar halkaasi oo ay ka howlgali jireen ayaa lagu yiray qoraal barta Twitter-ka ay soo dhigtay waaxda dambi baarista dalka Kenya maalintii la soo qabtay labadan shakhsi. Xafsa Maxamed oo 23 sano jir ah ay bishan horaanteedii booliiska ka heleen qol mugdi ah oo ku yaala halka lagu magacaabo Kayole oo ka tirsan caasimadda waddanka Kenya ee Nairobi. afduubayaashan ayaa waqtigaasi Xafsa qoyskeeda ka dalbaday lacag madax furasho ah oo gaaraysa 5 milyan oo shilinka dalka Kenya. si kastaba ha ahaatee, eedaysanayaashan ayaa 14 maalmood xabsiga lagu hayi doonaa si DCI-da ay u soo dhameystirto baaritaanada ay ku hayaan labadan qof. dhanka kale, Xafsa Maxamed Luqmaan ayaa iyadu ka hadashay qaabka loo afduubtay iyo waliba waxyaabaha loo geystay. alxamdulillah, waxaan faraxsanahay farxadii lama soo koobi karo. ayaga waay labadooda iyo midka la jira midka saa iyo waa qaraac jirka ii geystay. lacag waxay kala baxeen account-deeda waxay ahayd 658,000 oo lacagta Kenya. mid kale aan ku lahayna way jirtaa. mid aan ku lahaay 700,000 wax la jiro. cadeynta waxa waay ayada iga waday anoo shaqadeyda joogo meesha ii geysay. waxay iga waday meesha shaqadan joogo. xageen ii geysay meesha oo lagu afduubi Kayole, meel Kayole la dhahay. ganacsi ayada ay dhahday ganacsi isku darsanayna ayada ganacsi maxay haysaa oo qaraangada ay dhigi jirtay. lacag isi lacagtaada waan ku soo celinay, faa'iidana waan wadaagayna. waligeena faa'iido kama arkin. lacagta nus ay iga qaadi jirtay waxay gaartay 700,000. ayada way taagneeday وين أسأل الجرا ويتاجني أيه والله أنا مركلي قراعين إتمين ما أنت مركز وجودن بس أنا حنون دري ما أفتوك سودا قبل إسوا بعد صلاة صبحي حيقول هذا العقد هذا كسوسينا مال استور أيضا لهذا وان كذا هذا مركز العقد هذا كسينا نو محل هنا فاس ما هاي سومر وإسومر قفا وذنينا اللي هو إجديد هذا أنا إسراعنا نمر وآمن أنه راعي لا واحد وجه إيه عنده ما أبي وحكي لإيه جستان ولا. الحمد لله وحن فرحسنا هاي فرحدي لما سوى كوبي كر أيجا واي لبضة إيه يوم متك لجري متك سا إيه لو قراعي جترك إيه جستان.
lacag waxay kala baxeen account-dii waxay ahaydeen 658,000 oo lacagta Kenya ah mid kale aan ku lahayna way jirtaa mid aan ku lahay 700,000 wax la jiro cadeyntahay waxa waay ayada iga waday anoo shaqadeyda joogo meesha igeysay ay iga wada meesha shaqadan joogo xageen igeysay meesha oo lagu afduubi Kayole meel Kayole la dhahay ganacsi ayada ay dhahday ganacsi isku darsanayna ayada ganacsi maxay haysa oo qaraangada ay dhig jirtay lacag isii lacagtaada waan ku soo celinay faa'iidana waa wadaagayna waligeena faa'iido kama arkin lacagta nus iga qaadi jirtay waxay gaartay 700,000 ayada way taagneeday wayna isla jireen way taagneeday ayada wallahi ana markii ay qaraaceen ay tumeen maalinta markaas ay ugu dambeysay ana waa xanuuna dareemay أكتب سود عقبال وإصابة بعد صلاة صباحي حيقول هذا العقد كسوسينا مال استور أيضا لهذا وعن كذا هذا مركز العقد كسوسينا لو محل هنا نفاس ما هاي سومر وإسومر قفا وذنينا اللي هو إذا جديد حيل هذه أنا إسراعنا نمر وآمنا إنه راعي لا واحد وجه إيجا عنكم وجه وحكة لإيجا يستر ولا